roob ayaa ku da-ay 1300 oo qof oo la halgamaya sidii ay uga heli lahaayeen xerada qaxootiga ee Liba ee ku taala Bosnia Herzegovina. intooda badan oo ka kala yimid Pakistan iyo Afghanistan waxay sugayaan fursad ay kaga soo gudbaan xadka Croatia oo galaan midowga Yurub. xero weyn oo hore ay u deganaayeen ayaa ku burburtay dabayaaqadii bishii December kadib markii ay ka baxday hay'adda socdaalka caalamiga ah IOM oo mas'uul ka ah goobta. halkan waa meel aad u qabow, waa baraf, waxaan dhibaatooyin badan ku qabnaa xeradan Liba, ayuu sharaxay Maxamed Joseph oo muwaadin Pakistaani ah. fadlan nacaawi, waxaan ku jirnaa xaalad aad u xun, ayuu yiri ninka ay isku wadanka yihiin Maxamed Afsal. qayrta cas waxay cunada u qaybisaa goob ciidanka Bosnia ay gabaadyo ku meel gaar ah ka sameysteen golaha magaalada Bihag oo ah magaalada ay ku taalo xerada Liba. waxay ku eedeeyeen ururka caalamiga ee socdaalka IOM inay sababtay dhibaatooyin bani'aadamnimo markii ay ka baxday. midowga Yurub wuxuu ugu deeqay ilaa 90 milyan oo euro labadii sano ee ugu dambeysay Bosnia Herzegovina si loogu maareeyo dhibaatada tahriibka.